magacayga waa Arjun Jeeraa waxaan jiraa 19 sano dadka oo kala duwan waxay haystaan nisbooyin kala sareeya oo xagga garashada iyo fahamka la xiriira waxaan u maleynayaa kaliya in islaamku u yimid dadka leh fahamka aadka u sareeya qofna ma awoodo inuu tacaaliintiisa iyo macnahooda u fahmo qaab sax ah marka la barbar dhigo iskuulada waxaan ula jeedaa dadku waxay galaan fasalada hore si ay u gaaraan fasalka 10aad balse diinta islaamku waa fasalka 9aad oo kale soo sax maaha inuu u yimid islaamku kaliya dadka ruux ahaan u horumarsan walaalka su'aal wanaagsan buu weydiiyay oo ah markaan isbarbardhigayno dhammaan diimaha waxaan ogaanaynaa in islaamku leeyahay darajo aad u sareysa balse sida xaalku yahay iskuulada diimaha kale waxa loo ekeysiin karaa fasalada islaamka loo ekeysiin karo fasalada sare arintaas ma sax baa waan kugu waafaqsanahay haddana isla markaa kugu waafaqsanay waan kugu waafaqsanahay in islaamku u yimid dadka ruux ahaan horumarsan balse taa macnaheedu maaha in dadka aan lahayn ruuxda horumarsan aysan suurtagal u ahayn in islaamka soo galaan arintaas kugu waafaqsanay sabab maxaa yeelay guud ahaan qof waliba iskuulka waa uu soo gali karaa haddii uu galo iskuul ingiriishka lagu dhigo tusaale ahaan waxa ugu horeeya ee uu baranayo waa alifbeetada luqadda ka soo qaad inuu galay iskuul lagu dhigo ingiriishka bilowgaba wuxuu baran doonaa alifbeetada A B C D E sax sidaa darteed diinta islaamka haddii qofku ruux ahaan horumarsanaan xitaa markuu iskuulka soo galayo waxa ugu horeeya oo waajiba inuu raaco waa tawxiidka bilowga luqadda ingiriishka oo ah alifbeetada waxay u eg tahay tawxiidka marka laga hadlo diinta islaamka tawxiid micnihiisu waa rumaynta hal ilaah oo kaliya sidaan horay u sheegayba markii walaalka sinkasinkaha uu weydiiyay su'aashiisa oo ku saabsaneed micnaha Allah kaasi waa fahamka asaasiga ah isla asaaskaasi waxaa laga helayaa dhammaan diimaha kale balse nasiib xumo dadkaasi waa hogaamiye diimeedkee ma doonayaan dadku inay arrintaasi raacaan dadku hadday diinta raacaan markaasi madax diimeedka ayaa raaci doona haddii dadkoo idil ay bilaabaan cibaadada hal ilaah oo kaliya hogaamiye diimeedkaasi wax nafci ah ma yeelanayaan ma noqonayaan dad u dhaxeeya rabbi iyo dhammaan diimaha kale waxay leeyihiin waxaad u baahan tahay qof dhexdhexaadiya sida kitaab gablow ama gooro iyo wixii lamid ah balse diinteennu waxaas kaa dooni mayso dhammaan diimaha waxay qabaan fariintaas asaasiga ah waana islaamka balse nasiib xumo hogaamiyaal diimeedku ma rabaan dadku inay arrintaasi ogaadaan waxay doonayaan inay dadku ka fogaadaan ogaanshaha arrintaas maxaa yeelay haddii dadku iskuulka galaan doonistooda waxay u dhiibi doonaan Allah haddaad Allah doonistaad u dhiibtana waxay la micno tahay inaad tahay muslim sidaa darteed wax nafci ah ma yeelanayaan dhexdhexaadiyaashaasi isla sidoo kale shaqadooda way ku khasaari doonaan waa isla sababtaasi haddii kale dhammaan kutubta muqaddaska ee diimaha iyadoo weliba la bedelay alle subxaanahu wa tacaala hal diin oo kaliya ayuu dhammaan dadka u soo dejiyey balse maritaankii waqtiga kutubta muqaddaska way isbedelayeen balse xitaa kutubtaasi haddii la bedelay oo wax lagu daray waxna laga bedelay ama lagu ciyaaray waxaad ogaanaysaa kutubtaasi wixii ka haray inay sidaan fariin ah kaliyeelidda alle subxaanahu wa tacaala in cibaadada sanamyadu ay xaaraan tahay iyadoo la og yahay inay jiri karaan faqrooyin kale oo arrintaasi kasoo horjeeda balse haddii aad baarto xaqiiqada arrintaas ayaad ogaan doontaa sidaa darteed waxa aan oranayo isla waqtiga aad ogaanayso inuu jiro abuure arrintaasina waa wax aan beri ka doodi doono anigoo tafaasiil badan ka bixinaya markaasi ayaad ogaan doontaa hadafka laga leeyahay noloshan markaasi ayaad heli doontaa in dhinaca ruuxda ama diintu ay tahay rumaynta hal ilaah oo kaliya waa allaha kaliya ee mudan cibaadada sidaa darteed qof waliba xitaa haddii uusan ahayn mid ruux ahaan hormarsan isla waqtiga uu doonayo inuu u mahadceliyo abuuraha waxaa waajiba inuu doonistiisa u dhiibo Allah shakhsi kasta oo doonistiisa u dhiibo Allah waxaa laga soo qaadayaa inuu yahay qof muslima waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay